iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay dhaawacyada ciidamadii ku soo dhaawacmay duqeymaha dawladda dalka Mareykanka ay u geysatay fariisin ciidamadaasi ay ku lahaayeen deegaan duleedka ka ah magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ciidamadaasi waxa isbitaalka Madiina ku booqday qaar ka mid ah ururka dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug dhalinyarada oo isbitaalka ku booqday bukaanadaasi dhaawacyada qabay ayaa sheegay ujeedkoodu ahaa in ay la qaybsadaan xanuunka ciidamadaasi ka soo gaaray duqeymahaasi dawladda dalka Mareykanka ay u geysteen xilli askartaasi ay ku sugnaayeen fariisin ay ku lahaayeen deegaan hoostaga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waa kuwan dhalinyarada oo halka saxaafadda kula hadlay dhammaan inta ka soo qayb gashay barnaamijkan aan xalay ku muujinayno sidaan wax nahay wixii dhacay aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaanteen waxaan wada ogsoonahay Soomaaliya maxay ay sheegaan in badan aan la soconaa dhacdadii dhamaadkii bishii la soo dhaafay ka dhacday gobolka Mudug qaasatan agagaarka magaalada Gaalkacyo arrintaas ku nimaadna waa arrintaas inaan muujino sidaan wax nahay guud ahaan hoos haddaan u sii galo waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan dadkii reer Galmudug dhacdada halkaas ka dhacday walaalihii ku geeriyooday ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsana la hageeyo kuwii ku dhaawacmay ee kuwa maanta aan la joognay qaybta ka ahaayeen waxaan leenahay caafimaad sariica allaha siiyo ilaahay ha u boogadhayo inta kalena Soomaaliya guud ahaan madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiraahdaa wixii dhacay waxaan ka baran doonaa marka inta kale ku dhintay ku dhaawacmaan ahayna إن شاء الله وحنا كبر دونا عربا إن أرنك الله بعد دعوات قلادي سيد توسك وجيس في دولة أمريكان كا سيد دعوة ودعوة يو وحي كيرادين ولي نوما كالعادنا مركب وركاسين أي دولة أي كالعادة أمريكان كوارمنا عيد ما سوى عيد ما قارن كسومالية كترسن وحي قاصة ciidamada guutada 20 kubaad ka tirsan Galmudug marka ma aysan halkaasna ma joogo shabaab reer Galmudugna shabaab ma ahan dhiiga Soomaaliyeedna beec ma ahan macna dareen in loo daadiyo justification muhiim ahayna ama cudurdaar muhiim ahayna laga bixiyana nama deeqdo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dadkaas ay ka dhasheen nama deeqdo doonina marka dawladdu inay warkaas dawladda Mareykanka warkaas inay cadayso naguma filna waa argagaxiso naguma filna aan maxalli ay sheeg waa shabaab aan cadayn lahayn totally we are not a terrorist in Galmudug manihin dad argagaxisan manihin dad alqaacida manihin dad shabaab manihin waa ciidamada qaranka ciidamada meesha ku gaareen waxaan rabnaa dawladdu war ku filan warkaas waran waaqanci karno inay cadayn la timaado inta la daasho waa soo baarayna waa inta ma yeeli karo marka ma oranayo hadda inaan waqti hore u laabto mana u maleynaya dawladda Mareykanku waa dawlad waqti dheer soo jirtay ilbaha inay ku fakartay inay aarsato 22 sano ka bacdi inay aarsi u soo istaagtay anigu ilama ahan inay dawladda Mareykanku ay maxalli ay sheegaan la qoysaska Soomaalida ama ay la kala safato ilama ahan laakiin warku waxa ku soo koobaya waa inaan helnaa cadayn waa inaan helnaa haddaan cadayn weyno oo aan warkaas aan jawaab ka helin waxa aan yeelayno guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Galmudug waa arrin gooni anaga noo taalo insha Allah intaas haddaan uga gudbo anoo aad uga xun inaan markii koobaad aan saxaafadda aan u mahadcelin laakiin qof kasta oo meeshan joogan guud ahaan aan salaamay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka reer Galmudug walaalihiin waa aragteen maanta sawirkoodan waa aragteen idinka ayay inay sugayaan idinka ayay halkaas inay yaalaan waxay ayaan xoogga qaranka Soomaaliyeed bay ka tirsanaayeen shalay idinka ayay difaacayeen ciidan Soomaaliyeed bay ahaayeen maanta idinka sariirta inay yaalaan marka jawaabtii aad ka bixi lahaydeen inaad garab istaagtiin insha Allah waan inaan xasuusinay waan ogahay in arrinkeeda dadaal ku jirta laakiin waan xasuusinaysaa markasta xasuusto in Allahu maca saabiriin aad baan maanta u xanaaqsanahay maalin intii waxaas dhacayna maalinba maalinta kale waa ka sii xanaaqsanahay maanta xanaaqa igu weyn waxa waaye markii la yiri wiilashii wadankan wax loogama qaban karo waa kan warqadahoodii waa kuwan waa kuwaas wiilashii waxa la yiri wadanka
wax loogama qaban karo qaarkood ma garatay waa mid indhala waa mid baralaysa على كل حال تورقد صد مركان هيو قعنتي دوي قريريسا لكن قف ما أنتي وعن كوكان عايا وحكستو هنديلا قبليش حلي وبودلان وهاللي قبلي نمانكي عقلين ميالي را معقا وحيوين وضياشة قلمدو بودلان وهاللي يري وناك بان كشقينينا ولا نبان كشقينينا أنا وليبا قبلي حلي مركان أركاد يا وقدرينا هي waxaan rabnaa run haday idin ka tahay ninkii subaxii la soo jarmaaday inuu shabaab dilay oo buntland inaad gacantiina naga soo saartiin ama qabatiin ama aan aragno inaa xabis la geliyay kaas horta waxaan rabnaa cadaaladda inaa la hor keeno horta nimankan Maraykan uma imaaninin iskamana soo taargadgadaysan waa loo sheegay waan ognahay marka reer Buntland haddaad iskala saarteen oo tiraahdeen dambigaas maanan gelinin waan qaadanaynaa inayna wada gelin because sheekh shariif iyo caaqilba waa leediin nin wax garanaya oo muslina oo gaalo u soo adeegsanayn dadka sida idinku tiraahdeen haddaan taariikh xalay idin dhageysanayno xanaaqeeni aad buu u yaraaday markii gabdhii Buntland ay shireen oo nala cataabeen markii wiilal dhalinyaraan aragnay markii aan odayaal aragnay laakiin waxaad rumaysiin inaad raggii ku faanay dilka oo geystay oo nimankeena shabaab ku sheegay ayaga shaajuusiin ahaaye inaad keentiin sharciga keentiin inaad keentiin isha wala casilay mana deeqdo waxaana deeqda idinkoo maxkamad keenteen hadda dad walaalaad tihiin haddaan warkiina inaan idinka qaadano rabtiin Maraykanna waxaan leenahay wixiinu hadday aarsi ahaayeen waa mayna aarsanin ma garateen oo waxa waay guul lagaaga dambeeyo guul maaha haddii ay tahay la idin soo siray oo dambigaas ay ka dhacay dad Soomaaliya oo idin soo siray waxaan rabnaa inaan magdhow oo apologize degdega ka dhiibtiin annaka waxa waay maantay waxaan nahay gacalka gacmo u waa dadka galmudugna go'aaniyaan la hadlayaa waxa dadkiini waay meesha yaala waxa rafaadsan waxa wiilasha la yiri maantay bale wadankan waxa laga ma qaban karo gacantayda xataa ma qaban karto way gariiraysaa ma garatay ala kulli xaal anu wiil Soomaaliyeed ha sii dhinto ma ku waaninayo in la isxakameeyo in dadka muslimka ay dhiigoodu qaali yahay dhinac kasta ay degan yihiin horta baan ku baaqayaa marka dadkii reer galmudug wiilasha halkaas ay idin yaalaan anigu dawlad ordaysa ma arkinin mana u jeedo laakiin waa isku filannahay salaam alaykum hadday gabdho leeyihiin hadday leeyihiin bahalkii wiilal eedooyinka intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaasha gaar ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa saxaafadda oo runtii nala bannaan baxday shucuurta nala muujisay si tabarucaad ah inuu qaarkood u yeerin noo yimid si gaar ah ugu mahad celinaya intaas ka bacdi waxaan rabaa warka ma badinayo inaan saddex qodob ka hadlo saddex beer macnaha qodob inaan ka hadlo mid waxaan ka tacsiyeenaynaa oo shucuurteena ka muujinaynaa dhalinyaradii reer galmudug dhalinyaradii Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradii ciidanka reer galmudug oo ayagoo shacabkooda biyo u dhaaminaya Mareykanku si gadarrada inta madaafiicda ugu garaacay xirooda ugu tagay ayagoo wax dagaal u socon ee booyad biyaha dad rayid abiyo u dhaaminaya garaacay waxaan leeyahay reer galmudug intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo inta kalena waxaan leeyahay badbaadin rabaan intaas reer galmudug baan leeyahay xaqoodana waxaan ku aqaanaa insha Allah ta'ala dad doona kale in yihiin waan doonaynaa inta ka bacdi waxaan la hadlayaa Mareykanka dawladda Mareykanka argagixis ay sheegaan argagixis eraga markii Soomaaliyan anagu waxaan naqaanaa dadkii wax argagax galiya markii qof walaalkaada biyo u dhaaminaya oo cid la dirreyn lagu awood sheegto argagax ka xun ma jiro waxaan leenahay adinka argagixisa leena Mareykanka galmudug argagixisa maahan dawladda Soomaaliya argagixisa maahan waa kuwan maanta isbitaalka dawladda Soomaaliya yaala waa kuwii laga soo dejiyay airportka dawladda Soomaaliya iyagoo dhaawaca haddii argagixisiga markaas cadayn leeyahay waxaan leenahay idinka yeeli mayno inaad inkirtaan idinkoo qiran oo og inaad disheen inaad ceeb u aragtaa inaad qirataa idinka yeeli mayno waa inaad cadaysaan waad ogtihiin waa naga ogaalsantihiin inaad disheen waa ogtihiin dhalinyaro Soomaaliyeed inaad disheen ciidankii galmudug waa ogtihiin
inaad inta nuxnuxaysaan tiraan ayaan la sheegin maaragtay ma yeelayno waa inaad qirataan dadkeen wax kale ku qarxi maayaan haddaad diidaan waxaan leenahay haddaad awood sheeganaysaan waxaan aaminsan inaan ka awood badannahay midda kale idinka waxay sheegaan ilaa September bay sheegaan oo dadka xoog badan ay dileen idinka dad in xoog yar bay dileen laakiin adigu awood sheegateen waxaan leenahay 28 November waa nooga dhibaata midda geysatay waa inaad qirataan dhibkaasna aad bixisaan 20 September ha waa inaad qirataan dhibka aad geysateen waa inaad ka jawaabtaan waa haddii la in soo siray cidii in soo sirta anagu la hadli mayno nin siray oo tabartu gaarsiisay ana magaciisa sheegi maayo asaga u taala ninka in soo siray laakiin adinku waa inaad dhibka anaga Mareykan baa la diray asaga la dirsan cid kale la dirsan ma jirto asaga la diray isaga ka argoosayna haduu ka jawaab waayo wax noo geystay waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya dadka inaad xukuntaan xaqooda keen weysana ka yeelima waxa weey dhaawacii baa yaala isbitaalkiina soo inuu madaxweynaha Soomaaliya yimaado sababta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ka sheegatay madaxweynaha Soomaaliya inuu yimaado ahay inuu waxa wasaaruhu yimaado inay ka jawaabaan bay ahay inay dadka banaanbax u diidaan oo yiraahdaan dawladda annaka aan lama hadli karo lama banaanbixi karo calanka Mareykan lama gubi karo dadkii aysan u jawaabin u imaanin ka yeelmayno waxaan leenahay dawladda waa inay ka hadashaa jaaliyadu waa inay banaanbax waa inuu Mareykanku cadeeyaa dhibka uu geystay dadkana halkan wax looga qaban karo waa la sheegay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya qurba joogta dhammaan dadkan waa in loo gargaaraa dadkii laga dhintay waxa leeyahay Allah u naxariisto caawin bay rabaan agoomaa jira waxa jira dad macnaha dan yaraha jira oo dadkoodii dhinteen waxa leenahay iyakana kaalmay rabaan in loo gargaaraa la rabaa la caawiyo inta waxa weey la iska warqabo intii dhimato laga dhinto aan halkan joogin oo galka waxna Ilaahay sabir iyo ka siiyo على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورينا لله وإنا إليه راجعون أنا أقول هلا مقع عرض جوال كبنادر جامعة كبرته وكسر جدا دوام وين قل مذوق وحن آدي وطن هاي تعرضها صفاش وحن مريكو جستي ولو جستي شعب الصوماليات شعب الصوماليات ما كلا له ديجان ما كلا له مذب جونية ما كلا له أنا واحد أرنا واحد لو جيس وأم الصوماليات واحد لطبيعي واحد ماشي كل إنتنا واحد ويلر الصوماليات واحد كده إنتنا واحد قرن في الصومالية كده إنتنا واحد هرتا مركو هرا حنون كله وذاقينا شعب كقل مذوق مدح يو شعب يو معمول با حنون كيصدق مع المود برور ضيق لا يتاجناين أيان لو ذاقينا أنا وأهل مقدشو أيان لو ذاقينا ما أنت واحد صوب بقناي داوعي لكياني استال مدينة بوليس دوقينتي لو جيستي عيدن كالصوماليات قل مذوق وهو القل هاي كوي لباتنات كتسنة وما أنت اللي قلت علينا يستالك مدينة أيان صوب بقناي قاركود waxaan loo cadeeyay raqaatiirtiisa waxa lagu qaban karin dalka waa dhacdo aad u xanuun badan horta marka hore waxaan tacsi uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed qaasatan galmudug xanuunkaas dibka badan oo soo maray tacsi uga dirayaa dadkii ku dhintayna waxaan leeyahay Ilaahay jannada ha ku raabiyo mujaahidiin bay ahaayeen gacan ka khadran baa dishay kuwa xanuunsanna waxaan leeyahay Allah ha caafiyo dawladda Mareykanka oo dibkaas geysatana waxaan leeyahay sida walaalihii ugu horeeyay ay sheegeen inay si degdeg ah uga soo jawaabto inay qaadato gardarrada iyo duqeynta ay geysatay ma is qaadan karto inay dawladda Soomaaliyeed caawiso iyo inay shacabkii dawladda Soomaaliya hadana duqeyso labadaas ma is qaadan karaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dawladda Mareykanka rajaynayaa inay jawaab waafiya soo bixiso oo ay gardarradaas ay qaadato insha Allah ta'ala taas ka rajaynayaa waxaan kaloo dhaleecaynayaa Puntland sheegashada ay sheegatay shacabka Soomaaliyeed waan dhaleecaynayaa ما أرانا يعني واحد أرانا كان ضد رأي حماية إني كتشوامين رأي قاسي كتشوامين إدرس بدلا إسقاط الرعسنين أينا واحد رجينا إن شاء الله تعالى دلعنا ويسوي كذينا إن شاء الله واحد ما أنتي تعسيد لو ذاقنا جودهان شعب الصوماليين واحد رجينا دولة الصومالية إني ما ركتهوش أو يستكتو دولة القلم يقول يستكتو إني سكجلين قرقرتن يعني الشباب بقى هذين سكجلين كجلين إلا أي دولة المراكن كعدي سو مقدق كبحسه وضد كده تسلق دلي ما ركتي مقدقو للسيو إني سكجلين كجلين أي رجينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ما سنتين. على أشرف الأنبياء والمرسلين وحنا مهد علنا دمان كسوق بالكلياشة للي يرد القلب دوي للي قبله بعد الصحافة أنت استدل وحنا رأينا أو تأثير دمان بطل كل انتي فالكي وحشني ماذا هاي الدولة المراكب كل ستي سيدي لواتك سبتمبر قبل كمدو أنت لما تعلقون حريصان لأن هاي
intii dhaawaca allaha caafiyo intaas kadib waxaana galmudug ay u dulqaadan doonin inta dadkii la laayo haddana in la inkiro oo la dafiro galmudug ma yeeli doonto adduun weynaha waxaanu leenahay United Nationska Soomaaliya ka tirsan tahay Mareykankuna waa uu ka tirsan yahay ma adduunka cadaaladii ka dhamaatay mise dawladda Mareykanka miyaa sharciga caalamku qaban intaas xuquuq bini'aadamka hay'ado u doodaa jira dhammaantood warbixin baan rabnaa inay ka soo jawaabaan dadkaas noocaas waan cambaaraynaynaa 28 September waxay galmudug noqon doontaa maalin caalanka galmudug la dejiyo oo u dhiganta 12 September Mareykanku mar walba uu caalankiisa dejiyo ama uu bunbuuniyo السلام عليكم ورحمة الله. sidoo kale bukaanada ku jira isbitaalada oo iyana dhankooda saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay tahay xaaladooda caafimaad iyagoona sheegay in qaarkood taqaatiirta ay ku wargeliyeen in xilligaani xaaladooda caafimaad aan gudaha dalka waxba looga qaban karin isla markaana ay u baahan yihiin gargaar caafimaad oo dhanka dibadda ah raaskii alkii soo fuulana aan kor iska aragnayn waxaa meeshii lagu soo weeraray diyaarado iyo ciidamo koofiya bira qaba oo ay kana ugu qaaday diyaaraduna baabuurtii lagu gubtay halkana waa ku baaba'ay dhaawacayga hadda u shidan ama sintii بس بعد ما طلعت مراكن وين انا صور ايوه سو قاسي انت سو قاسي لا ما يبان على صلاه ما يبان على صلاه انا waxaa kala aamay weyn galma marakan ayaa loo soo wareegay weyn galma markii weerarku dhacay maxaa dawladda markii weerarku dhacay maxaa dawladda anaga deegaanka galmudug meel kamid ah baan biyo shooyn awal baan wadnaa ayaan soo wareegay diyaarada soo wareegay adigu waxa ku caddeeyay ciidanka Mareykan ayay dawladda inta waa diyaarada inta بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وحي حبيب حسن سلبيه waxaan hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo ka dhaqnatay soo booqatay dhibaatada loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed ahna ciidamada galmudug maamulka galmudug ciidankooda waxaan Ilaahay u rajaynayaa kuwa jooga Ilaahay inuu badbaadiyo kuwa dhintana Ilaahay u naxariisto kuwa jirana oo dhaawacana Ilaahay caafiyo waxaan cambaaraynaynaa cidii u geysatay dhibaatadaas iyo cidii been abuurtay iyo dawladda Mareykanka oo ku soo duushay maamulka galmudug iyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidanka galmudug waan cambaaraynaynaa ayagana waan u ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo waana soo booqanay waana u soo gurmanay waana u gurmanaynaa dhawaan ayay ahayd markii diyaarad nooca droniska ay dawladda dalka Mareykanka ay leedahay ay duqeen u geysteen fariisin ciidamada maamulka galmudug ay ku lahaayeen deegaan duleedka ka ah magaalada Gaalkacyo iyadoo dawladda dalka Mareykanka ay sheegtay in duqeymahaas la eegatay ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab Abdulqaadir Cabdullaahi Maxamed TV-ga Somali News magaalada Muqdisho